dantii saquun South Africa wiilasheena Soomaalida lagu dhameeyay waxaa mas'uulka ah odayaasha dalkeena dhibaatada u geystay mas'uulka ah Allah u naxariisto inta naga dhimatay Allah u naxariisto taxsiya waxa u dirayaa si qaas ugu dirayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan kale u dirayaa inta qiirootay ee South Africa ka soo horjeedo waxaan Soomaali aan leeyahay halkaas calan mataqaanaa yaa adduunka idin suran ama isgoboleeya ama gobol u kaca ama kale tood gooni isku taag iska dhiga idinka idin saala muhiimada waxa waaye dalkayga waxa duleeyayo oo dabeesha dhigay dalkayga waxa duleeyayo oo dabeesha dhigay duliga u horseedooda hayaalan diirnaxin duliga u horseedooda hayaalan diirnaxin dabciga Soomaalinimo aan dadnimo lahayn dabciga Soomaalinimo aan dadnimo lahayn odayashana duleeya qabiilkay qoriga u sitaan dhigena duleeya wahaadkeena daahawaneyn dhigena duleeya wahaadkeena daahawaneyn coming soon bramro badan soo wada qiira ah waxay ka galmal dadka sida iyo arkaan muhiimada waxa waaye gobonimo ku dhimo wadannimo ku dhimo yeah Somali ahay I love my country I don't want someone else kill my people yeah walaalahayna la dilo marabo marabo ina walaalahayga dalkii lagu qarxiyo marabo waa loo qarxinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala as umadiisa keensaday adduunka asiya cadaab iyo jinno u haayay maxaa cadaab iyo jinno ma u heesaa dadka faraha qaad dhiig cabeeyo ilmihiin yaa lagu qalanayaa qurbaha dhinaciis kale diirnax ma leedin yaa al-shabaab diirnax male kuwaas goboleenay iyo kuwa dawladda heesta iyo kulligood waxna diirnaxa ma laha dhalinyaradii aniga faacaheed kuwa iga sii weynay kuwa iga yaraabo way rafaadeen 2 sano anaka rafaad marina waxna soo celin kara xataa malqaara soo noqon karna waxba haysanin Soomaaliya hadaan nahay isku jaxan Ilaahay idinka qaaday damiirtii inay soo noqotaa isku dayna insha Allah nin walba Soomaali waxa mas'uul ka saaran inuu qiirada iyo wadannimada muujiyo qabiilne oo faraha ka qaado because qabiil waxa waaye awooyaasheen iyo dhinta waaye yaa maalin walba in loo sheego magacooda dambi anaga soo gaarayo dambi weyn anaga soo gaarayo waa la xasuustaa daasad Soomaali waxa qof dhaqankeeda ka tagtaa dhawaad dulooda dhaqankiina ka tagteen waa dulaysantiin idinka dhan waa dulaysantiin awaalid xusaal arag jiray waagi horeetad oo hooyooyinkeena aabayaashana nagu dhahaan quraan hala akhriyo waalidka maxay la xusay yaaliyo quraan akhriya sidii waalidiinteena mataqaana Allah subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws ka waraabiyo inta Soomaali ka dhimato gacan gardarra ku dhimatay inta bad ku dhimatay inta madaafiic lagu qaraacay inta miina lagu qarxiyay Rabbi subhanahu wa ta'ala ha naxariisto gacan kulligood waa la gardaran yahay waxa hadda idan madaxweynayaasha hadda imaanaya inay diirnaxaan waa inay maxay loo nin lacag ku qaada dhahaan wadankaas adiga u fadhiisay Soomaaliya ma aha Soomaali waxay xaq u leedahay in la soo celiyo baasaboorradooda meesha joogaan loogu geeyo because shalaqii qaladka galay ka dambeeyay inuu sax waay waxaan ka codsanayaa fanaaniinteena qaaliga marba oo dadaalo oo dhibaatada ka soo horjeeda waxaan ka codsanayaa inay heeso badan soo qaadaan oo South Africa dhalinyarada joogto wuxuu baahan yihiin ani wala sheekaystay gaboolal abtiga dhalay ka buuxan waxa kula sheekaystay oo weydiiyay meesha ma ka bixi kartiin may waxay dhaheen 1200 la bixiyo waaye oo go back home hadii go back home kaas xataa mar waa la joojiyaa hadii la joojiyayna waxa ina baasaboor qaadatid la baasaboorka lacag asaga joogo wiilasha meesha ku xayiran yihiin kan dariska iska dilaayo kan oo tuuga soo galaayo oo dilaya marka waxa waaye dawladda la xisaabtama joogtay dhalinyarada meesha laga soo wado Kenya Ethiopia kulli isku mid waaye wadamadeena ha loo celiyo maxaa wadankeena loogu celinaynin askala goboleedsana nin walba muxuu dadkiisu ceeshanayeen Soomaaliland dadka ha cishato Soomaaliya kulli waa isku wadan yaa laakiin kulligiina cista dadkiina yaa gobol kasto dadku ka soo baxaa soo cisto mar walba dawladda Soomaaliya eed la saaran maahan Soomaali hadaatiin ka cistay dadkiina ma taqaanta qurbaha oo rafaadka oo Afrikada ku taalo anako oo joogno Europe maalba la dhahaa hadaa nila malay in la rasgareey bax go back home ana la dhahaa ma taqaanta yaa wadanka iskaga noqo hada gumeeste rabtiin in nila gumeestana de gumeestii hore inaan noo dhaaftaana ficneed ina xornimo noo sameeysan may ahayn yaa wadankeena iska dhex joogno lagu dhex gumeestiya assalaamu calaykum intaas muhiim iga ah
mid kaleeto hel baranbara ku dhufanaya had iska alifayaan Soomaali baan ahay santaag suura baan wahay dadkaygaan ani jeceeluhu waanan ku dhinta deel qafan Soomaali baan ahay war suuraan ka ahay dad saari Soomaali baan ahay war suuraan ka ahay dad saari sinjiga nabi maxamed iyo suuradaha quraan sinjiga nabi maxamed iyo suuradaha quraan wadanka carab joogtay baan aanan ciise ka helin Soomaali baan